الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي اللحاد هي دروستين بشي محرم بإذن الله تبارك وتعالى. الحياة قصيرة وإن طالت في نظرنا نلشو الدونك ويقابن تهي هبا إن لا ديراته نلشا الدونك متاع ذي الراحة ذي وزائل ومتقيسة شهوات كيدنا ورaaxadeeduna waa rakhiis wax weyn ma aha sheekh la odhan jiray mutarrif ibn cabdillaahi baa wuxuu yidhi ina hada almowta qad afsada calaa ahli naciimi naciimahum faltamisuu naciima laa mowta fiih wuxuu yidhi geeridu waxay ka fasahaadisay dadka ahlu nimcada ah barwaaqada ku jira barwaaqadoodii waxaa fasahaadiya geeri baa ka faa'iidaysa haddaba ninkii helayow bal waxaad raadisaan nicmo aan geeri ka dambaynin marka ma la helayaa jawaabtu waa maya haddii ayna jirin nicmo aan geeri ka dambayn waxaan adduunka aad artay loo wada raaxeeyey loo nimceeyey adduunka iyo nolosha ku wada jira waxa uun ka dambaysa iyagoon diyaar ahayn laga soo wada qaban geeri inay u timaado xitaa cimrigaadu hadduu dheeraado adduunyada dee dadkeenu cimrigaadu isagu ummadeenu maba dheeraba oo rasuulka yidhi acmaaru ummatii bayna 60 wa 70 cimriga ummadaydu inta ugu badan waaba 60 iyo 70 bay u dhaxaysaa waxaana yar buuri qof gudbaya oo dhaafaya wuuba yar yahayba xitaa haddii cimri dheer lagu siiyo nabiyullaahi nuux oo dacwadan u taagnaa 950 sano maaha da'diisu inay intaadu ka badnayd waa intuu dacwada iyo daaciga ahaaba keliya 950 sano ahayd nabiyullaahi muusa oo markii malaku mowd loo soo diray xadiidkii saxiixa ahaa ee uu damco inuu nafta ka qaado uu yidhi waxaan rabaa nafta kaa qaado ee dharbaaxa ka soo gooyey ee kadibna isha xitaa kaga soo riday sidaa kadibna uu malakul mowd u laabto u dacwooday rabbi uu yidhi yaa rabbi addoon aan diyaar ahayn baad ii dirtay kadibna lagu soo noqdo la yidhi waxaad ku tidhaahdaa intaad gacantaada saarto athawr dibi buu ahaa baan filayaa dibigii intaad gacanta saa u saarto uu maaragtay gacantaadu in alla intay qabato oo timihiisa ah ayaa tin kasta sanad baad noolaanaysaa yani gacantaadu waxay qabato oo timihiisa ah tin walba oo ka mid ah hal sana lagu siinayaa marka intaa markii lagu yidhi buu yidhi uma maada bacda maxaa ka dambeeya yaa rabbi markaasaa la yidhi almowd geeri baa ka dambaysa falaana buuri haddaba hadday arrintu sidaas tahay oo kolleyba waxay sugayaa geeri uu yahay haddaba ha layga qaada nafta marka sidaas waxay daliil kugu tahay wax walba oo joogto waxa ka dambeeyay geeri unbaa ka dambaysa laa tadrii walaa nadri qof og ma jiro inta uu noolaanayo maalin ma noolaan doontaa sanad dambe oo cusub ma gaari doontaa haddaba haddii arrintu sidaa tahay falxadar alxadar min altaqsiir aan ka digtoonaano waxaa la yidhaha taqsiirka iyo gaabinta aynu iska ilaalino rasuulku waa kii lahaa sala allahu alay wasalam ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها يعني أنا هي الدنيا رسولكم مروا مثالنا يي حقي محير محانا كلا قريبا أنا الدنيا وحاد مدابر أنا مثل كي وحوية سيدا قف سفر أها أو وحوغا جيد هوستي كو قيلو شضي geed hoosta waxoogaa naab ah ku qaatay hurdo yar baa la yidhaahdaayo saacad iyo waxoogaa indhaha la isku qabtay ayaan ood moodaa buuri kadibna ka caraabay oo ka dhaqaajiyey ibnu cumar baa wuxuu odhan jiray xadiidka markuu fasirayo kun fi dunya waxaa la qaybtaa dambe waa ibnu cumar hadalkiisii kun fi dunya kaannaka gariibun aw caabiru samaya xadiidkan markuu fasiraya soo socdo oo ah xadiidku wuxuu ahaa kun fi dunya kaannaka gariibun aw caabiru sabiil rasuulka yidhi sala allahu alay wasalam adduunyo waxaad ku noqotaa qof gariib ah oo aan laga garanaynin oo kala meel uu tegayo ama caabiru sabiil marka xadiidkaas oo tafsiirkiisa imaamu nawowi uu tafsiir aad u cajib badan ka bixiyey oo odhan jiray waxaa la yidhi xadiidka kun fi dunya kaannaka gariib adduunyada waxaad ku noqotaa qof qariib oo kale qariib waxaa la yidhaha marka ruux meel uu ku cusub yahay yimid tusaale haddaan usoo qaadano adigoo waddan ka tegay oo waddan kala tegay oo magaalo caawa tegay baa waxaa la yidhaha magaalada adigoo qariibka ku ah ma suuragal baa inaad ku fikirto inaad degto
guri ka dhisato reer aad ku samaysato nolol aad ku abuurato marka ma badna laakiin way dhici kartaa ogow oo dad badan baa dhaxsin u tagay oo halkaa tegay marka intii xadiidka qaybta qariibun marka laga daba yimid baa waxaa la yidhi aw caabiru sabiil waxaad adduunyo ku noqotaa qof jid gudbaya oo kale marka haywayga ama jidadkan sariiceed aragtayna degdega ah oo lagu gudbo yacni baabuurku boqol uu isagoo saaran yahay ku gudbaayo oo meel lagu joogsada aan lahayn waddanka maraykankan hadda anigu ku noolahay waddanka maraykanka ah ka gees waxaa jira jidad isku xidha hal meel oo ku joogsadaan male inaad adigu jidkaa ka baxdo ma ogiye laakiin jidku wax jid kale oo goynaya oo joojinaya oo baabuurtu isku xidhmayaan ma jiro hadduu jid kale yimaado ama kor buu ka marayaa ama hoos buu ka marayaa laakiin marnaba jidka haywaygeed saaran tahay istaagi maayo sidaas daraaddeed marka jidadkaa iyageed u jeedo suuragal ma tahay inaad dhexdiisa dhisato ood guri ka istaagto sar aad ka jeexato ma ku fikri kartaa maya kuma fikri kartid marka sidaasaa la yidhi qaybtii hore intii laga yimid qariibkii ow caabiru sabiil ibnu cumar marka wuxuu odhan jiray idaa amsayta falaa tantadiri sabaax wa idaa asbaxta falaa tantadiri masaa haddii uu awaawu kuu bariyo galab waxba ha sugin haddii galab aad gaadhana waaba inuu kuu bariyo waxba ha sugin sixadaada iyo markaad caafimaad qabtana war hoy waad jiran doontaaye jirada intaadan gaadhin sixadaada uga qaado oo ka faa'iidayso nolosha intaan nool lahayna aan ka faa'iidaysano geeri ayaa ka dambayn doontaa wasala allahuma wasalam calaa nabiyina maxamed wasaxbi ajmaciin